shirkan looga hadlayo horumarinta warbaahinta Soomaaliya ee maanta la soo gabagabeeyay ayaa muddadii uu soconayay ee 3 cisho ahayd waxaa si weyn looga hadlay baahiyaha saxaafadda Soomaaliya waxaana iska kaashanayay ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ iyo hay'adda Press Now waxaa ka qayb galaya muddadii uu soconayay idaacadaha TV-yada iyo ururada saxaafadda Soomaaliya qaarkood oo ka kala socday bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, Somaliland iyo Djibouti. qaar kamid ah milkiilayaasha warbaahinada Soomaaliya oo ka qayb galay shirkan qabanqaabiyaha isna shirkan iyo wariyaashii ka qayb galay 3 cisho ee uu soconayay shirkan ayaa ka hadlaya waxyaabihii ka soo baxay oo arkaysan shirkan aad ka qayb gashay ee muddada 3 maalmood socday ee looga hadlayay baahiyada warbaahinadu ay qabaan maadaama TV satellite oo in muddo waxaan adigana ku dhex jira tahay horta waxaan ku faraxsanahay maanta shirka inuu ku soo gabagaboobay international donorska qaar kamid ah oo aad u interest gareeya arrimaha Soomaaliya inay ka soo qayb galeen waxaadna u moodaa in beesha caalamka ay xoog saaraysa arrimaha Soomaaliya waqtigan iyo sida media loo kordhin lahaa maanta halkan waxaa ka soo qayb galay telefishino wargeysyo idaacado marka tan aan ka dareennana international community waqtigan jiro inay support xoog leh ayna siin doonaan insha Allah laakiin maanta fursadda aan helnay oo nalaga ogolaado waxay tahay in iskuul la furo suxufiyiinta wax lagu baro meeshii islama garan dib la iskaga imaanay meeshii laga furo runtii inkastoo dood ay ka timid oo in Soomaaliya laga furo in dibadda laga furo laakiin iskuma raacin waxa kale oo muhiim ah oo faa'iido badan leh in la furaayo satellite oo TV radio ah oo saacado shaqeynayo asagana hadda balantiisa ay la iskaga imaan doono in satellite laga dhigo short wave satellite taasna balantiisa oo dhiman tahay shirkan shir runtii aad u fiican oo la iskaga wuxuu noqday hirgala oo aad u fiican waxa ka soo baxay go'aamo kuwaas oo ah ku saabsan sidii loo horumarin lahaa warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga waxa laga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka kala yihiin sidii yaani loo horumarin lahaa saxaafadda gaar ahaan dhinaca farsamada dhinaca aqoonta dhinaca maamulka iyo sidii loo xoojin lahaa yaani difaacitaanka xuquuqda suxufiyiinta iyo dhammaan bahda saxaafadda oo aad og tahay in dhibaatooyin xoog leh haystaan shirka waxa soo qabanqaabiyay ururka suxufiyiinta qaran ee Soomaaliyeed ee NUSOJ iyo Press Now hay'adda la yiraahdo ee warbaahinta taageerta oo fadhigeedu yahay Holland 3 maalmood buu shirkan loogu talagalay labadii maalmood ee soo dhaafnay maanta ka horeysay warbaahinta iyo saxafiyiintu waxa ay qiimeynayeen dhibaatooyinka haysta iyo maxaa xal ah waxa la isla gartay oo hoosta laga xariiqay baahiyaha ugu waaweyn ee warbaahinta Soomaaliyeed haysta ay kamid yihiin dhanka nabadgelyo la'aanta suxufiyiinta dhimanaya ama dhaawacmaya dhibaatooyinka ay la xiriirdo dhanka dhaqaale xumada mushaar la'aanta ay ku shaqeeyaan aqoon darrida maanta jirin dalkii meel saxafiyiinta wax lagu baro shirkan ka qaybgalka ka soo qayb galay wuxuu ahaa mid muhiim u ah aniga iyo saxafiyiinta kale afka Soomaaliga ku hadashaba waxa uu muujiyay maaragtay sida aan isugu xiranahay ee u midaysan tahay saxaafadda afka Soomaaliga ku hadasha ayuu u ahaa maaragtay cadeyn u ahaa runtii shirkan aan maanta nimid waxa shir faa'iido ay saxaafaddu kala kulantay guud ahaan faa'iidadaas waxay ahayd wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyay ee donor ama urur deeq bixiya ama saxaafadda caawiya intuu yimid uu na weydiiyay baahida garoonka taal ama taala dalka maaragtay iyo aanu ka nimid taala ayuu ahaa maaragtay shir arintaas ay ka soo baxday waad arkaysaa inaan uga mahad celinay hay'adii kale aan u sheegnay inay ku daydaan midda muhiimka ah ee shir ka soo baxday ee aan runtii anigu aadka ula dhacay waxa weeye in suxufiyiintii Soomaaliyeed inta la isugu yeeray meel walba iyagu ka yimi halkan inta la isugu keenay la yiri maxaad u baahan tihiin waan idin qabanaa deetana iyagii ay baahidoodii sheegteen oo wax allaale waxay u baahnayeen dadkay ka dhaadhiciyaan deetana la yiri wixii sidii aanu idinku qaban kareyno ayaan idinku qabanaynaa inta laakiin ma ahayn wax dusha lagaga keenay oo lagu soo rogay laakiin waxba la weydiiyay marka taas aniga runtii aad iyo aad aan ula dhacay waxaan aaminsanahay shirkan socday muddada 3 maalin ah ee laga gon lahaa kor sida loogu qaadi lahaa aqoonta iyo horumarinta warbaahinta dalka Soomaaliya inay ka soo baxeen ujeedooyinkii ugu ballaarnaa ee laga damacsanaa
abad lala doonayay in muddaba lala raadinayo warbaahinta dalka Soomaaliya sida saaxiibkay Cumar Faaruqba uu sheegay waxa ka soo baxay sidii loogu sameyn lahaa macad lagu tababaro saxafiyiinta Soomaaliyeed ee muuqato in waxbarashada dhinaca saxaafadda ay ka haystaan inay aad u yar tahay maadaama dalkuba aysan ka jirin macaahid ama jaamacado dhinaca waxbarashada ama nidaamka waxbarashada dalka dhan uu liito waa mahadsantahay kullay wixii waraha waa la dhameeyay laakiin waxaan raacinayaa kaliya macadkan sida uu sheegay Garyare waa inuusan noqon mid ku kooban saxaafadda sida la socoto saxaafaddu way argaayeen dalka way ka soo wada tageen waxaana buuxiyay booskoodii dhalinyaro cusub dhalinyaradaasi marka tababar loo helo waxa muhiim ah in maamulka laftirkiisa loo tababaro habka maamulka iyo nidaamaadka shirkan warbaahinta Soomaaliya sida lagu horumarinayo looga hadlay ayaa muddada 3 maalmood ee uu soconayay waxa saxafiyiintii ka soo qayb galay ay si weyn u soo bandhigeen baahiyaha saxaafadeed ee ay qabaan waxaana didiilo weyn ay muujinayeen dadkii shirkani wada in ay ka dabooli doonaan baahida saxaafadda Soomaaliya iyo guud ahaan goobaha looga hadlo warbaahinada afka Soomaaliga Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi